hanuunka iyo tawfiiqdu ilaahay bay subxaana wa tacaala gacanta ugu jirtaa. addoomaha ilaahay waxaa hanuunaya oo khayrka la waafajinaya ka ilaahay subxaana wa tacaala uu hanuuniyo. rabbina subxaana wa tacaala tawfiiquu ku arsaaqo. ilaahay subxaana wa tacaala hanuunka iyo tawfiiqda addoonka khayrkii wanaagga la waafajiyo. ilaahayna subxaana wa tacaala qalbigiisa u geliyo jacaylka taacaadka iyo cibaadaadka iyo usahay qaadashada ilaa daari ilaakhira. ilaahay arrimahaasi asbaab buu u yeelay. waxaa la gudboon addoonka muslimka ah inuu ku dadaalo asbaabta ugu kaalmaynaysa wakhtiyada qiimaha badan inuu ka qaniimaysto aakhiro uga sahay qaato. wakhtiyada u sharafta badane ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray waxaa ka mid ah shahru ramadaan almubaarak, bisha ramadaana ilaahay subxaana wa tacaala uu barakeeyey. waa bil ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha u badan naarta uu ka xoreeyo oo rabbi subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa uu ku galladaysto. waa bil la furo albaabada samada iyo kuwa jannada labadaba. waa bil la xidho albaabada naarta iyo shayaadiinta kuwooda madaxa adaga u taagan luminta ilmo aadam. fursadahaasoo dhami waxay u yaaliin addoomaha ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyo ka faa'iidaysiga wakhtiga qiimaha badan. naftu waxay u baahan tahay khayrka iyo wanaagga in lagula dadaalo. inay naftu khayrka iyo wanaagga ku dadaashaana asbaab bay leedahay. haddaanu addoonku asbaabtaasi la iman naftu sideeda khayrka uma jecla. waa ka yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xujibat innaaru biاshahawaat wa xujibat iljannatu bilmakaarih. naarta waxaa lagu hareerayey waxay naftu jeceshahay. waxaa naar geynaya ayaa nafaha badankoodu ay jecel yihiin. jannadana waxaa lagu hareerayey waxay naftu karaahiyeysanayso. waxaa naftu ay karaahiyeysanayso ee dhibsanayso ee dadaal iyo sabir u baahan ayaa jannada lagu gelaya. ayuha almuslimuuna cibaad allah mima yuciinu alcabda cala اغtinaami shahri ramadaan wma awdaca allahu subxaanaه wa tacaala fiihi min alghanaa'im ikhlaasu alcibaadaati lilahi rabi اlcaalamiin. arrinka koobaad ee addoonka ku caawin kara qaniimooyinka bisha ramadaan ilaahay uu geliyey inuu ka faa'iidaysto ou ka mid noqdo min alraabixiina fii shahri ramadaan waa in cibaadaadka uu samaynayo ramadaan dhexdeeda ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii u sameeyo. ilaahay subxaana wa tacaala inuu ula qasdiyo cibaadaadka. arrinta noocaasi ahi waa cibaadada u fadliga badan ee addoonku hadduu ku guulaysto cibaadaadka iyo khayrarka kalena ay ka farcamayaan. waxaa kaloo arrintaasi ay noqonaysaa xaafizan lilcabdi ila alkhayr, mid addoonka ku dhiiri geliso ku riixda khayrka. marka uu naftiisa u sheego maankiisana ay ku soo noqnoqoto cibaadaadkan uu samaynayo inuu u samaynayo likhaaliqihi wa liilaahihi rabbi alcaalamiin, allahay subxaana wa tacaala abuuray ee caalamiintoo isagu uu ka mid yahay rabbi u ah. allaha ka jirsiiyey isagoon jirin. allaha arsaaqa. allaha nicamkao dhan ku galladaystay. allaha subxaanahu wa tacaala axwaashiisa oo dhan maamula. allaha uu dhulkiisa dul socdo arsaaqadiisa cunayo samadiisana u harhsanayo. shagi kuma jiro xusuusnaanta arrimaha noocaasi ahi iyo qalbigiisa inay xaadir ku ahaadaan annahu yaqsidu bilcibaadati rabbahu, inay cibaadaadka addoonka u fududaynayso. waayo qofku camalka uu qabanaya haba adkaadabe cidda uu daraaddi u samaynaya hadday tahay cid qalbigiisa ku weyn camalkaas wuu la fududaanaya. waata keentay in fara badan layna amro ikhlaasu alcibaada lilah wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin.
وتصحيح النية لرب العالمين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أرنك اللباد أدونك كعاونية بشهر رمضان مركا وقارو إنه نقضى أدون طاعاتك يا خيرك يا عباداتك كد داله والاستعانة بالله رب العالمين إن كستو أدونك خيرك ودون يوددال لو كبحنيو أدون وضعيف وعاجز لا حول له ولا قوة إلا بالله خير ما حاصلين كرو وأود ما الله وكحاصليه حدانو إلهي كعاون شر كما تجي كرو حدانو إلهي كتجستيس كعاون حالة كما جوري كرو متكلا وموريجي كرو حدانو عاوي مدى إلهي قرقار كي سهلين تاسوات الصوابتي يا عباد الله الاستعانة بالله إني نقط من أعظم العبادات وأرفعها منزلة ودرجة عند الله إلهي إلا كالميستو أري والبلو كالميستو على أمور الدين والدنيا عبادات كأوى وين يوجد درجة الصرية إلهي أكتيس منزلة وين كله حتى إلهي سبحانه وتعالى مركوا أدومها عبادوين كأمري يدا سيجارة وشاقي وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إله أدو قرآن كعابدين أدو قرآن كالما يسرنا وتكنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن أمره نقبو الريو دذلك إنه كد دالين وحان نفعي واحتري نوله إنه نراعين ومرنا بأينا كريبين كالميسك إلهي فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك واستعن بالله وحو احتركوا لك دذال كاغا وقرنا هيسكوها اللين إلهي سبحانه وتعالى كالميسو إلهي تلصارو إلهي باهدا تلصار تود كالميستك غفلا إلهي با سبحانه وتعالى وحكستوك وادقنا كوفض ضينية ومن يتوكل على الله فهو حسبه أرنك صدحات يا عباد الله كوكو عاوين يا بشر رمضان خيرك إلهي قليينات كغني ميستو ومجاهدة النفس نفتين للدداشو خيرك كل الدداشو شرك يا حمان تنينات كحكميسو إلهي با كتاب كيسا إنوغو الشاقي نفتو إني تهي مد حمان فريس بدن إن النفس لأمارة بالسوء نبي محمد با عليه الصلاة والسلام منبر كان ملكو كسو استاغو إلهي شركيدا كما قنقلي جري ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلهي بانو كما قنقلينا شرك النفار وشر النفس يا عبد الله أن تثبطك عن فعل خير أو تدفعك إلى فعل شر شرك النفط وإني كافريسيسو وإيكاردك تميد كوه سداد سمين تخيرك أما يكون ريحدو يكون دي رجاليسو سمين تشرك يا حمانتا نفط مرهدو دبعي جيدو سيدا يهو نفوها سيدا وبديهين وحادب كذا لقبت بادي كراه خير إني سميسنا وصواب كراه إن إلهي الشرك كذا لقى مغنقرو سألني محمد عليه الصلاة والسلام وسمين جري إسلام كان للجهاد ونفط اللمقونيه وناقا عليسك كوا دبسانه يسلقو صبر سيو سدعرت قرار لوغو صبر يدو للرجينيو دودا iyo bogsashada ka dambaysa waxa xulay ay doonaysana in laga celiyo oo laga qadiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kitaabkiisa inoogu sheegay qofka naftiisa saasi ula jihaada khayrka ku sabirsiya sharkana ka xakameeya waxa ku culus ee danteedana ku qaada in ilaahay subhanahu wa ta'ala inta dabadeed u fududeynayo wadooyinka khayrka inta hore ayuun bay u baahan tahay in sida loola dadaalo waa sida qaalinka aan hoggaan baran ee maalmaha hore la leeyayo hawl laga kulmo leelintiisa laakiin inta dabadeed noqda awr hayina oo ilmo yar oo shan jir ah hoggaankiisa inta loo dhiibo uu kiciyo kaxeeyo oo fadhiisiyo waa naftu waa sida ilmaha yar
الناس كشقية هدي لقى قوية مالمها وراهيسك وأرنت عسدي بقواتو مالمها الدنبو يسكدين يا إسقى يا نعية وحتى هدي هو يدعي هذا هو أن يلهين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين كو نفتو ذا إلهي درادي أولا جهادي آيات دوا مكية جهاد كايشيغ يسالوا جهاد النفس على الطاعة وعلى ترك المعصية والمخالفة كو نفتو ذا إلهي درادي أولا جهادي إلهي وحلو حانو كهانون دونا ودوينك خير كودا إذا جاهدت نفسك يا عبد الله فتح الله لك أبواب الخير كلها ويسر لك أبواب الطاعات كلها الباب هذا خير كودا بإلهي كفريا إلهي سبحانه وتعالى وحكوف ضدين إياه ودوينك الله مر طاعاتك هي عباداتك حقيقة سوى حاد شربوا إنه قوى الرمي ددكي نقه الري ثابت بن أسلم البناني رحمه الله كان عالما تابعيا خيرا وحوري كابدت الصلاة 20 سنة لما تنسى النضوات بان نفط إذا الصلاة كلها هذه ثم استمتعت بها بعد ذلك انت هدى دوحان قاري هير صلاة عن كراحي صدتك غير كود صلاة ويكوع الاسطاي سي أي صلاة وقول راحيستان وحيو بهاي نفتو دينا كل جهادان دادك قار كودنا الصلاة دي كل راحيستان وإمام هؤلاء وأولهم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كواسي هرمود كودة يكودة والريوة الرسول كإلهي وجعلت قرة عيني في الصلاة وحا قلبي يقول كدة وكل راحيستو إنده يقول يكدوك سدان صلاة الله قد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله داري نفتاد عباداتك يا خير كوسو تشيدين في شهر رمضان للجهاد صبر سي أرنت كعلوسة كقراد كدو الحد كل الددال مركز دنبوي قابت مدونتا أيها المسلمون عباد الله أرنك أفراد يا دونك كعاونية على اغتنام شهر رمضان والنظر إلى من هو فوقه في الطاعات والعبادات لا إلى من هو تحته الدوما إلهي ويكلا سريان إيمانك يكلا سريان كددالك خيرك أيه كلا سريان ولك لديري ترتم باتشرة آخر يسرتاق إلهي إيا نعيمك إلهي الكاو كدياريي الدوموها يترتميان dadka qaarkood tartankaasi inuu jiro maba xusuusna qaarkood tartankaasi inuu jiro way og yihiin laakiin naftooda waxsiga badan baa ka qaalib noqotay kuwa kale waxay ku jiraan tartan joogto ah waxay eegayaan adoomaha ilaahay iyaga ka cibaado badan dabeetana inay kuwa gaadhaan oo waliba ay ka dheerayaan bay ku dadaalayaan alam tasma'u ya ibadallah ما قال عباد فقراء المسلمين مينان مقال وحي راهدين مسلمين تي فقراء هاي لكن أهل العبادة والصلاح وخيرها يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور تدكي حولها يستيها لكن مسلمين إلهي عابدة أي أتشركي نقبت صدي سانو تكنني وتكنيان سانو سوميني وسوميان waxay leeyihiin xoolo way sadaqadaysanayaan oo taasayna dheerihiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muu odhan intii naasi ku qanca bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay tartan galaan oo isku dayaan kuwaasi inay gaadhaan bal ay ka dheereeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maydin tusaa arrin haddaad samaysaan kaydinka dheereeya aad gaadhaysaan kaydinka dambeeyaana aanu idin soo gaadhahayn qof intaad samayseen sameeyey oo kale mooyaane wax culusba maaha wa salaada faralka markaad ka baxdaan 3 jeer subxaan allah dhaha 3 jeerna alxamdu lilaahi dhaha 3 jeerna allahu akbar dhaha waa 9 isku darka intaasi
marka boqolaadna waxaad tidhaahdaan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir. taasaa cidda idinka dheeraysa aad ku gaadhaysaan, cidda aan samayna aad kaga dheeraynaysaan. rabadaan waxaad eegtaa kuwa qur-aan akhriska ku dadaalayee badsaday inta jus ay akhriyaan, kuwa aan qur-aanba akhriyin kuwaasi aan la tartamin ama qur-aan akhriskoodu uu yar yahay. rabadaan waxaad eegtaa kuwa salaad walba safka hore ku tukanaya ee farallada sunnayaasha ka horeeya ka dambeeya raacinaya. rabadaan waxaad eegtaa ood higsataa kuwa amwaashooda inta u badan sadaqadaysanaya. rabadaan waxaad eegataa aad hiigsataa kuwa xuska ilaahay farabadinaya iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam. rabadaan waxaad hiigsataa kuwa masaajidada ku ictikaafaya ee wakhtigooda u badan ku qaadanaya amaakin alcibaada, meelaha ilaahay subxana wa tacaala lagu caabudayo. ilaahay baa subxaana wa tacaala cibaadaadka iyo waxaa sahay aakhiro ah ina amray inaynu u kala dheerayno, inuu tartanno. fastabiquu lkhayraat wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaat walard uciddat lilmuttaqiin wafii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun. akhri siirada iyo taariikhda dadkii naga horeeyey iyo xaalkoodu siduu rabadaan ahaan jiray. taas waxay kugu caawin doontaa inaad rabadaan ka faa'iidaysato. ilaahay baynu subxana wa tacaala weydiisanaynaa an yajcalana min alghaanimiina araabixiina fii shahri ramadaan وأن لا يجعلنا من الكسالى الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، نفت بني آدم كوا إندو قرط سيدا أوجد وحي أباهان تهاي si ay khayrka ugu sabirtay ugu dadaasho in la xusuusiyo aakhiro oo aragtida qofku ay adduunyadan dhaafto, uu noqdo qof aakhiro eegaya iyo soo hortaagga ilaahay subxana wa tacaala. arrinta noocaasi ahi waa akbaru cawnin lilcabdi calaa ficli الطaacaati wاlcibaadaat, waana sababta keentay ilaahay subxaana wa tacaala inuu kitaabkiisa aada ugu soo celceliyo xusuusinta addoomihiisa uu xusuusinayo geerida iyagoo iyaguba og inay dhimanayaan. kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اddunya ila mataacu lguruur. sida laysugu xidho u fiirsaya cabdallah, xusuusinta geerida lagu xusuusiyey iyo waxaad samaysay ajarkiisa inaad heli doonto, abaalmarintiisa, iyo natiijadu inay noqon doonto inaad ahaato aakhiro mid sahay fiican iyo camal saalixa la tegay oo naarta laga fogeeyo jannana ku guulaysta, iyo inaad noqoto mid camalkiisu uu halaagay aw baqahu camaluh oo jannada aad ka qaddo oo naartana aad gasho. walciyaadu billah, ilahay baynu janno weydiisanaa, naarna ka magan gelayna. ilaahay subxaana wa tacaala waa ka in badan ina xusuusiya aakhiro inaynu u sahay qaadanno. watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wattaquuni ya uli lalbaab. xusuusinta nafta aakhiro iyo geerida la xusuusiyaa qeyb weyn bay ka tahay naftu dhaldhalaalkan adduunya inaanay ku mashquulin ee wakhtiyada qiimaha badan daacaadka iyo cibaadaadka ay ku dadaasho iyo waxaa sahay u noqonaya maalinka ilaahay la hortegaya. wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat. wax iska xigsiiya oo isaga dhiga maalin xagga ilaahay laydin celinayo. yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin, maalinka addoon kastaaba ilaahay hor istaagayo. naf walibana wixii ay shaqaysatay iyadoo waxba aan laga dulmin, dulmina aan dusha laga saarin, loo oofinayo. yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه آخر waxaa laydinku abaalmarinaya waa camalkiinni waa laydin koobaya laydin ilaalinaya aakhirana waa laydin oofinaya qofka khayr la kulmaa allaha waafajiyaha mahadiyo ka shar uu buugga iyo kitaabka kaga soo baxaana naftiisa meel cid kale yaanu canaanan ayuha almuslimuuna cibaad allah arrinka lixaad ee addoonka ku caawin kara inuu bisha ramadaan ka qaniimaysto waa inuu nafta had iyo jeeraale xusuusiyo acmaashan saalixa waxay ku helayso oo nafta had iyo jeeraale waxa ku beeran waxa ay samaynayso waxa ay ka helayso inay ogaato hadday ogaato in wax wanaagsan ka helayso shayga way ku dadaalaysaa oo dadaalkeedu sabab noqonaya ogaalkay ogaato waxay ka helayso nafta xusuusi acmaasha saalixa aad samaynaysa bisha ramadaan iyo waqtiyada kaleba raadka fiican ay ku leedahay noloshaadan adduunyo iyo taakhiraba wa annaka laa takuunu yaa cabd allahi min almuflixiina ila bidalik addoomaa ilaahay ee guulaysta inaanad ka mid noqon ahayn ilaa inaad camal saalixa la timaada mooyaane haddii kale aad khaasir noqonayso waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw biالsabr iimaan camal saalixa oo sabirka khayrka lagu sabree xumaanta laga sabro iyo wanaagga oo dadka la faraa ay tusaale u yihiin ayaa khasaarahaasi lagaga badbaadaya nafta u sheeg jazaaga abaalmarinta iyo ajarka loo ballan qaaday qofka bisha ramadaan ilaahay daraaddii u sooma weliba soom wanaagsan oo qalbiga iyo xubnaha oo dhan uu ka soomayo qofka salaatuleyl ramadaan tukada qofka ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa oo qur-aan ka akhriyo la noolaada qofka dikriga ilaahay farabadiya wuxuu ka helayo istamci ya cabd allah ilaa maa wacada allahu man facala dalika min cibaadih aada u dhegayso akhriso wuxuu ilaahay u ballan qaaday qofka arrimahaasi sameeyo addoomihiisa ka mida arrinka toddobaad ya cabd allah waa tacaawunu cala alcibaada waa in cibaadada laysu kaalmaysto oo had iyo jeeraale qofka bani aadamka ay shayga uu ku keliyeysto naftiisu way ka daashaa inuu sii wadaana way ku adkaataa waana sababta keentay cibaadaadka gaar ahaan farallada in laga dhigay cibaadaat jamaaciya oo salaatu ljamaaca ragga lagu faral yeelay dumarkana loo sharciyeeyey soomka uu rasuulku uhi sawmukum yowma tasuumuun wa fitrukum yowma tuftiruun xajka laga dhigay cibaada jamaaciya wakadalika zakada hal mar sanadku markuu dhammaado inta isku xawliba inay bixiyaan la faray qofka muslimka ahi bisha ramadaan akhyaar julasaa saalixiin oo ahlu cibaada wa khayr wa khayrka iyo wanaagga ku caawiya himadiisa iyo hankiisa iyo yuhuuntiisana kor u qaada waa inuu yeesho ومثل الجليس الصالح كحامل المسك وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة صاحبك وناكسا يقفك أهل عبادة وخير وزهد وصلاح آية وكان مسكك أدوك وقالسا ستوكلين وكسين وكوهديين وكوهبين ama waad ka bedelan ama ugu yaraan inta la fadhido ayaa raayixa tayiba ay kaa soo gaari doontaa raadkaasi mid ka qiimo badan oo ka sarreeyuu kugu leeyahay xagga cibaadaadka ikhtar linafsika ya cabd allah fi shahr ramadaan rufaqaa saalixiin yuciinuunaka cala alcibaada wayaxuhuunaka calayha arrinka sideedaad ابتعد عن كل ما يلهيك عن العبادة في شهر رمضان وحكستو بشهر رمضان عبادة كان مشغولين اياه كفقوا واسكيلالي الملهيات وما انتهضوا بضان
adduunyadan lagu foogan yahay wakhtigoo dhan lagu bixinaya waa ka mid ee qofkii isagoo rabadaan ku jira uu leeyahay wallaahi rabadaan salaatu taraawiix dhowr habeen baan tukaday ama baan tukanba nin mashquul baan ahaayo xisaab iyo ganacsi iyo adduunyan ku mashquulsanaa uu leeyahay wixii u muhiimsanaayaad ku mashquuli lahayd waa waxa sahay aakhiro ku noqonaya ee maaha waxaad halkan kaga tegaysa ya cabdallah walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awala mara wataraktum maa khawalnaakum waraa duhuurikum wax allaale iyo waxaa adduunyo lagu siiya halkan aad kaga tegaysa shayga hooseeya shayga sarreeya kaa mashquulinin gaar ahaan fii shahri ramadaan waxyaabaha addoomaha mashquuliya maanta u daran telefoonada ka mida bal bisha ramadaan telefoonkaaga qorshe ka samayso aada iskaga xakamayso si aanu kaaga mashquulin ka sahay qaadashada wakhtigaa qiimaha badan telefishinada ayaa ka mid a ciyaaraha ayaa ka mid a nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam kaana yabtacidu can kuli ma yulhiihi can kamaali اlcibaada fadla can asliha wuxuu ka fogaan jiray rasuulkeennu wax kasta oo cibaadada dhammaystirankeeda iyo halka u sarraysa inuu ka gaadho ka mashquulinaya iska dhaaf waxaa asalkeeda iyo samaynteedaba ka mashquulinaya qaalat caaishatu radia allahu canha fima rawaahu lbukhaariyu wa muslim sallaa anabiyu calayhi الsalaatu wasalaam calaa khamiisatin laha aclaam rasuulku wuxuu ku tukaday sijaayad liid leh faqaala idhabuu bikhamiisatii haadihi وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني أو كادت أن تلهيني عن صلاتي آنفا وفي رواية فإني أخاف أن تفتنني في صلاتي رسولك عليه الصلاة والسلام وحالله كاني سيشايد ليد له أيان أبو جهم لو رنش لوسو هذه وكنت كذا رسولك صحيح شيء اسمه maruu ku tukaday salaadii uu ka baxay rasuulku wuxuu yidhi qaada sijaayadan liid kale abujaham u geeya oo tiisa saafiga ah ee liid iyo shagaar iyo waxay mashquuliya aan lahayn keena wuxuu rasuulku sijaayadaa ku diiday waxay ku dhowaatay inay salaadeeda iga mashquuliso fii riwaaya waxaan ka baqay inay ifitnayso salaada dhexdeeda oo maxay iga fitnayso khushuucdii iyo iqbaalu qalbi cala allah qalbigu inuu xagga ilaahay subxana wa tacaala u jeesto yaa cibaad allah mulhiyaadka adduunyada yaallaa waa wax shaydaanku addoonka muslimka ah uu ku lugoynayo macaali lumuur arrimaha kuwooda sarreeya ay tahay inuu ku dadaalo wakhtigiisa uu ku bixiyana uu kaga mashquulinayo arrinka sagaalaad yaa cabdallah wa luzuumu lmasjidi aw aliktaaru min almukthi fi lmasjidi fi ramadaan dadkii hore saalixiinta si abu hureyre iyo khayruba laga soo wariyey ramadaan wakhtigooda u badan waxay ku qaadan jireen masaajidka taasina asal bay leedahay iyadoo alictikaafu fi lmasaajid uu wakhti walba mashruuc yahay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam ramadaan si gaara buu ictikaafi jiray maruu 20 ictikaafay iyo maruu 10 ictikaafayba masaajidka waxaa ka jirta bii'a iimaaniya rawxaaniya qofka iimaankiisu uu ku ziyaadiyo khushuucdiisu cibaadaduna ay ugu fududaanayso wakhtiga u badan masaajidka ku qaado ya cabdallah arrinka u dambeeya nadim wakhtaka ya cabdallah wakhtigaaga nidaami bisha ramadaan dhexdeeda wakhtigu aad buu u badan yihi naftu waxay ku odhanaysaa waad mashquulsan tahay laakiin wax allaaliya waxaa hawl adduunye kuu taalla ee xalaala adoo qabsaday ayaa haddana wakhti badanood ku cibaadaystaa kuu soo hadhaya sida nebiga ilaahay uu amray xaalkaagu ha noqdo fa idaa faraqta fansab howlahaaga adduunye ee mubaaxa ah wakhti baa ka soo hadhaya markaad kuwaasi ka faaruqdo cibaadada u go wakhtigaaga u qaybi haddaanad ramadaan cibaado ka wada dhigahayn wakhti cibaadanaad ka wada dhigahayn cibaadada iyo howlahaaga adduunye u qaybi adduunyaduna yaanay ku soo xadgudbin
cibaadada iyo khayraadka ilaahay ramadaan dhexdeeda in la sameeyo u dhiirigeliyo ina faray xad go-an u kala samee naftaadana arrinta noocaasiyo heshiis kula gal taasi waxay kugu caawin doontaa khayr badan inaad kasbato fii shahri ramadaan